dhibaatada haysataa maxamed cabiib u malayn maayo inaad garanaysin intay leeg tahay waayo isagaaba suurtagala inuusan weli garanayn dariiqu u beeri doonaba anigoosan ninkan hore oo aqoon unbaa mar iga soo horbaxay isagoo baarlamaanka somalilan dhex fadhiya oo miiska qaraacaya oo si xaqa oo cadaalad leh oo caddeyn lehna u hadlaya oo ku doodaya una doodaya shacabka reer somalilan isagoona cidna u kala eexanin oo leh dhibaatada lagu hayo reer sool iyo sanaag waxay la mid tahay wixii ay somalilan uga go'day soomaaliya kana cabatay inaa artillery dowladuna u adeegsatay hub inay shacabkeedii leeso xaqdarro iyo genocide wey waxaas waa la aamusiyey waxaan kala arkay isagoo haddana ku doodaya inaa dekadda dakhliga ka soo gala cidna la osoconba oo baarlamaanka dadkii xitaa xisaab xidhiyaasha loo soo gudbinanba markii waxba laga soo qaadi waayo hadalkiisa inuu toos u dhaliilo madaxweynaha somalilan u dhaho waxaan dhacdaa ka dambeeya cid kula xisaabtami kartaana ma jirto waan fajicay waan yaabay waayo waa nin xaq ku taagan anigoosan ilaa hadda ogeynba xisbigee buu ka tirsan yahay ma madaxweyne musharax baana mar dambena ogaada inuu yahay keliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hase yeeshee waxay u soo haddana caddaato oo iga yaabisay inuu markuusa u hadlayo inaysan cidna garab siinba cidna soo garab istaaginba oo la moodayo inuu u hadlayo sidii nin guddoomiye xusbiya oo la moodayana inuu yahay xitaa madaxweyne musharax la baratamaya madaxweynaha weligaas ma odhanaysa yaroo baarlamaanka ku jira oo intaas oo kaabayaal ka sareeyaan ay ku dhex jiraan baarlamaanka xitaa saa u hadli kareenba isagoo dhan walba iyo si walba loogu hanjabayba hase yeeshee codkornimadiisii waxaa gaadhay in lagu hanjabay inuusan ku laaban karin magaaladiisii boorama aakhirkii markuu laabtay iyadoo si walba loogu hanjabay markii ay magaaladiisa asxaabtiisii iyo tolkiisii arkeen qacmo furnaan ugu soo dhaweeyeen ee ku dhawaajiyeen xataa inay madaxweyne u diyaar yihiin inuu u noqdo go-aanna hase yeeshee laakiinse inay maskaxdiisa ka guuxaysay inuu other state go'o iyo inuu isagu madaxweyne ka noqdo ama inuu ogaaba inay dhalinyartan weli xamaasad hadlayaan aysan la soconba ama ay af dhaafeenba inuu gobolka hoos ahaan u wato inay go-aanba oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenba haystaanba uusan sidaa daraaddeedna ku qacan seeri karayn wixii odayaasha hoos ahaan soo dhammaysteen uusan riixi karin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka other state doorteen oo iyagu weliba si walba uga soo horjeedaan inay la shaqeyn xataa somalilan isagu laakiinse wuxuu taagan yahay anagu ma haysano xataa somalilan inay gooda xataa ama inaan baadumino waxaan rabnaa keliya inaanu madaxweyne muuse bixi xilka ka saarno ilaa isaga u dumin mayne dowladda barakaysan oo weliba potential badan haysata laakiinse waxaa haddana la su-aal mudan maxaa ka keenaya waxaanoo kuleela inuu saa u dhaliilo mr abiib ila markii laga soo daayay xitaa jeelkii hanjabaadii handadaadii waraysigii ugu horreeyay laga qaaday waxa la weydiiyey hadda maxaad rabtaa wuxuu yidhi hadda waxaan rabaa in lay barooweeyo yani waan ka weynaaday xildhibaannimo iyo howlahan gaagaabka madaxweynenimo maxaa lagu dayi waaye laakiinse isaga laftigiisu waa ogyahay ina meeshan hadda iyo systemkan loogu dooranayn weligeedba madaxweynenimo meel qabyaalad ka jirto meel cunsurnimo ka jirto meel reer ahaan laysku maamulo oo weliba isagoo xitaa qalbigiisa koogiina weligiiba loo dooranayn madaxweynenimo oo weliba xitaa markii xitaa riyaale loo dooranaya ahayd siyaasad keliya laakiinse meeshan saddex maadal isku dhiibayaan oo ay tahay meel un 2.0 dowladii kacaanka siyaad bare wixii loo burburiyey un meesha kasii soconaysana laakiinse haddana isagoo intaasoo dhan ogna inuu haddana jeel ku jiro uu soomaaliya u gudbi karin waayo soomaaliya iyo outer state aad bay u kala fog yihiin waxaa u dhexaysa etoobiya etoobiyana hadduu gacan galo dhibaato kale galayaan saa awgeed waxaa la moodaa inuu jeel ku dhex yahay somalilan iyo siyaasadeeda una xilkaa mar walba ay noqonayso inuu codkar dhiibo codkiisana dhibaatooyinka iyo wuxuu rabo inuu soo gudbiyo farta ku fiiqo saa daraaddeed waxa u fududaatay inuu la kulmo emiratiga oo amnigiisa ilaalinaysa oosan u gacan gelinayn etoobiya una gacan gelinayn soomaaliya muuse bixina ka ilaalinaysa waayo emiratiga oo ololi dakhli badan siyaasad badan iyo dhaqaale badan hore u gashatay somalilan iyo muuse bixiba etoobiyana sidaa garab u siinaysa oo lamoodo labadooda bayna gacanta ku hayaan daadihinayaana dowladdan somalilan iyo muuse bixiba asagana sidaas lagu yidhi waxaad noo ahaanaysaa laf nagu dhex jirta meesha codkarnimo dhibaato ma kugu qabsan karto dhaqaalaan ku siinana cid kula hadli kartaana ma jirto oo sidaa daraaddeed ilaa iyo intuu ka tirsanaanayo dowladda somalilan emiratigana dana ka leedahay inay garabsi iyo isku tiigsi qacan ku wada qabsan doonaan wax walba asagana lala hadli kareen ilaa muuse hadduu ninka hadda taabto waxaa dhacaysa un inay emiratigii iyo etoobiyaanka u hanjabaan ilaa iyagu laftigood danbay ka leeyihin waayo maanta hadday u baahdaan etoobiyaankii inay galaan sayla siduu markii hore rabay xitaa ama dekadda inaysan geli karin ayakoosan la heshiis ahayn somalilan iyo emiratiga iyagoo isku afgartay wax afgarashadana waxay u baahan tahay inay dhan walba iyo qof walba gacanta ku dhigaan maantana mr abiib codkarnimadiisii waxaa la odhan karaa si walba usoo dadaalaya inuu jeebka emiratiga u galay emiratiga oo already ku qacan haysa somalilan dhan nin walba iyo xusbi walba jeebka iyo qacantooda laakiinse mid iyo keli u kala dilaysa waxaan odhan karnaa sheekadii saddexdii dibi ee walaalaha ahaa
ee kolba mid la cunayay ayuunbaa ka dhacday maanta somalilandna